Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa lagu dhaawacay toogasho ka dhacday meel ay ka socdeen dibadbaxyo ee ku taala magaalada Lahore ee dalkaasi Pakistan. Macadday intuu gaarsiisan yahay dhaawaca soo gaaray Imran Khan. Ra'iisul wasaarihii hore ayaa lagu arkay iyadoo loo sii qaaday isbitaal ku yaala magaalada Lahore oo kaaliyo ka tirsan xisbigiisa ayaana wakaalada wararka ee AFP u sheegay in ay isku day lagu doonayay in lagu dilo balse booliisku wali ma xaqiijin inuu ahaa bartilmaameedka isaga. Hogaamiye kale oo xisbigiisa ka tirsan oo lagu magacaabo Yasmin Rashid ayaa sheegay in Mr. Khan xaaladiisu ay wanaagsan tahay. Booliiska ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya nin ay qabteen oo qiranaya dhaawacyadan isla markaana ay sheegeen in uu isku dayay in uu dilo ra'iisul wasaarihii hore. Macadda xaaladda lagu qaaday wareysiga balse waxa ay ninkan booliisku ay weydiinayaan sababta uu rasaasta u furay. Waxaana ku jawaabaya waxa ay marin habaabiye dad waxaana doonayay in aan dilo. Waxaan isku dayay in aan dilo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan ayuu ku jawaabayay ninkan ay booliisku ay qabteen oo ay wareysanayeen. Muuqaal laga soo duubay goobta ra'iisul wasaaruhu uu ku sugnaa ayaa muujinaya Mr. Khan oo taageerayaashiisa oo ku sii qulqulaya ama ku sii dhacaya ka hor inta aanan la maqlin rasaasta. Muuqaal kale oo goobta laga soo duubay ayaa isna muujinaya Imran Khan oo miyir qaba faashadna ay gacanta midig ay ugu duuban tahay. Macadda in Mr. Khan si ula kaca loo beegsaday sida uu sheegay mid ka mid taageerayaashiisa. Macadda Mr. Khan in si ula kaca loo beegsaday sida uu sheegay mid ka mid gacan-yarayaashiisa sarsare iyo in kale xubin ka tirsan xisbigiisa ayaana sheegay in 4 qof oo kale ay ku dhaawacmeen toogashadaasi. Ra'iisul wasaaraha haatan xilka haya Sharif ayaa cambaarayay toogashada waxa uuna amray in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo falkaasi foosha xun. Mr. Khan oo 70 sano jir ayaana waxa uu hogaaminayay soo baxyo lagu dalbanayay in doorashooyinka dalkaasi la dedejiyo. Bishii aynu soo dhaafnay guddiga doorashooyinka Pakistan ayaa Mr. Khan ka hor istaagay in uu qabto xafiis dawladeed taas oo macnaheedu tahay in uusan doorashada ka qaybgelin. Mr. Khan Pakistan waxa ay leedahay taariikh hore oo ku salaysan rabshadaha siyaasadda oo dhiig badan ku daatay.